ما كنت عندي بينك maxay baxaysaa إنا لله وإنا إليه راجعون waxaa la soo warinayaa geerida Allah u naxariistay taliso taa oo ahayd gabar jilaay ah oo ay riwaayad wada jili jireen ayada iyo waliba Asad Abu Diyaabi iyo waliba Libaax Kabaye haddaba qisadan xanuunka badan ayaa dhawaan ka soo yeertay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland arintan naxdinta leh ayaa la ii sheegay inay sababtay kadib riwaayad ay jilayeen taa oo ay ku jilayeen qoray ama bistoolad sax ah oo ku jirta rasaasteedii sidaas daraadeedna xabad ay kaga fakatay Libaax Kabaye taliso sidaan hore u daawanay waxa jireen riwaayado ay soo gudbinayeen asbuucyada u dambeeyay oo ay ku jilaysa gabadhaasi inay dharka ciidanka ama qof ciidan ah oo u talinaysa ragga riwaayada waxa la ii sheegay la duubayay maanta inay taa ka duuneed oo la rabay inay awood ku yeeshaan ragga haddaba waxa la ii sheegay in kadib jilitaankii ayadoo lagu guda jiray inay xabadi kaga fakatay Libaax Kabaye halkaasina ay ku geeriyootay taliso haatan waxa loo taxaabay xabsiga groupkaas jilay riwaayadaas ayadoona ay xabsiga hadda ku jiraan Abu Diyaabi iyo waliba Libaax Kabaye balse arinta la xaqiijiyay ayaa ah inay xabadu kaga fakatay Libaax Kabaye ما كنت عندي بينك maxay baxaysaa taagan meesha iga baxay iga baxay iga baxay وافقنا حجاب قبط منا اسكو سيديس قبط منا بعوينها كانوا كيانا قبطتي قبح ما كتاب لسه بحد صعب صعب ما له قارين 10 كان لا عاد شعوات قناض يعني كان سوق يدير حلف قاعد صاص ورد وقع haddaba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa arin murugteeda leh waxaana wanaagsaneed halka ay ka qaateen ama ay jiliinka kaga isticmaalayeen hub sax ah inay isticmaalaan fake guns inta badan filmaanta caalamiga xitaa hubka la isticmaalayo ama rasaasta waxay yihiin dheemish ama hubka wuxuu yahay hub iska caaga ma aha wax fudud naf bini aadam in lagu ciyaaro ama lagu jilo wax qof dhibaateyn kara naftiisa haddaba arinkan ayaa keenay markii riwaayadii u dambeeyay ay sameeyeen ee dadku aad u jeclaysteen aadna u daawadeen loogana falceliyay si waliba aad ay ugu riyaaqeen iyaga wax sameeyay sidaas daraadeed waxa la tagtay jiliinkii iyo waliba fiyuuskaas faraha badnaa iyo dadkaasi reaction-kooda ayagoona marba marka dambeeyay isku dayay inay sameeyaan riwaayad reality-ga u dhow reality-gi wixii u dhawaa waxa ay sababtay geerida walaasheen Allah u naxariistay taliso haddaba arintaani waxay tusaale cad u tahay dadka riwaayadaha jila ama haatan wixii ka dambeeyay rabaan inay jilaan si caankan oo kala waa arin u baahan in laga foojignaado ma aha wax sahlan naf bini aadam in hub wax dila riwaayad lagu sameeyo hadeertan qadartii Ilaahay ayaa keentay oo kasi kama ahayn Libaax Kabaye inuu gabadha walaashiisa ay riwaayada la sameeynayay inuu si kaas u dila meeshan balse marka hore ayaa waxa wanaagsaneed in laga taxadaro oo riwaayada waxa lagu jilay laga saaro waxyaabaha qofka bini aadamka dib u keeni karo ugu yaraan xitaa hadii ay rabaan inay hubka isticmaalaan waxa ila wanaagsaneed in rasaasta ku jirtay laga saaro haatan walaasheen waa ay dhimatay kaliya waxa inooga baahan tahay waxa waaye inaan u duceeyno in Ilaahay qabrigeeda u waasiciyo in Ilaahay u naxariisto walaalkeen sidoo kale asagana dhibaatadaani dhaxda kaga jira iyo waliba groupka riwaayada ah oo aan dareemi karo xanuunka xilligan ay dareemayaan ayagana qalbigooda Allah u qaboojiyo waxaana filayaa in arintaani ay u noqon doonto cibro qaadasho dhalinyarada riwaayadaha jili doona ama haatan ku guda jira inay riwaayad jiraan fadlan ka digtoonaada waxyaabaha naftiina halista gelinayo sida arintan oo kale waxaan xasuustaa riwaayadii ay sameeyeen taliso iyo waliba Allah u naxariistay
asad abu diyaabi iyo weliba libax kabeeye rag aan maalin meel ku wada daawanaynay inay sheekadaani na soo dhex gashay oo ah waxaa wax lagu julayaa waa bistoolad sax ah ama xabado ku jirta oo hadhow qof wax gaarsiisaa gabadhan sida macnaha bistoolada ay u isticmaalaysa darteed balse aniga waxaa markaasi falcelinteeda noqotay inaan dhaho macquul maahan in dad ruwaayad jilaya in hubka way wataan waa sax laakiin rasaas kuma jiri karto because of ruwaayad baa la jilayaa fartay qofta kaga dhici karta way ogyihiin ayagaba way naga caqli badan yihiin balse arrinku sidaas ma ahayn haatan waxay sababsatay walaasheen taliso inay ku baxdo gacanta walaalkeed libax kabeeye waana sida ka muuqata ruwaayadahooda markii ugu horeysay ruwaayadan ay soo wadeen in nin rag ah oo awoodiisa isticmaalo awal inta badan gabadha ay awoodda isticmaali jirtay balse ruwaayadaani sida ila muuqato waxay ka damacsanaayeen in awoodda raggu ay isticmaalaan laakiin nasiib xumo walaasheen ayaa ku baxday waxaan leenahay allah u naxariisto qabrigeedana allah u waasiciyo fadlan waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inaad sii sheergareysiin iyo muuqaalada la midka ah ee walaasheen tacsida loogu dirayo si dad badan oo u gaaro ayna uga hesho dad fara badan oo u soo duceeya muhiimaddu waa intaas waad ku mahadsantihiin sida ay daawateen muuqaalka xiga intaan ku kulmeyno nabaday